الله رحمة بدنا رسولك يا الله رحمة بدنا رسولك يا الله آذان ربنا رفيقنا بو سيد نور يوسف كاغانا يا كوهلونا يا الله نولا شي قلبي نولا شي غرسون نوركي سو أدام كهري يو سيد نور يوسف كاغانا يا waxaa si heer sare ah uga qabsoomay masjidka Xaaji Aadan ee ku yaala xaafadda Geed Jecel ee degmada Warta Nabadda munaasabad loogu magac daray siyaaratul ikhwaan taasi oo isugu yimaadeen dhammaan ikhwaanka muslimiinta ah ee dadka ku abtirsada jaamacadda reer Xaaji Aadan siyaaradani waxay ahayd madal lagu xoojinayo midnimada jaceylka iyo walaalnimada muslimiinta waxaana alla looga baryay inuu ajar iyo khayr ka siiyo dhammaan dadkii ka qayb qaatay abaabulkeeda iyo ka soo qaybgalkeeda intaba siyaaradani qiimaha badan waxaa ka soo qayb galay mashaayikh waaweyn macallimiin iyo wufuud ka kala yimid jaamacooyinka kala duwan ee ahlu sunna wal jamaa kuwaasi oo goobta ku soo bandhigay galgacal walaalnimo iyo isxasuusin diini ah munaasabada ayaa lagu furay amaanta iyo salliga nabigeena Muhammad nabadgeliyo naxariis korkiisa Allaha yeele iyadoona qalbiyada ku diirsadeen xuska rasuulka Alle محمد بغيضه كافرون يعذب دوما على الجمر اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد قاسم خير الملا ومعدي الحقيقات ذو الكبر اللهم صل اللهم صل عليه محمد واسفه ربه فما لضعيف من الغمر ما صل وسلم على محمد رأى ربه جهرة بيقظات مع جسمه الأنوار الله كن معي على كل لحظة وخصوصا يوم الأولية طه يا ويا سيد الملا سيد الملا الله كن معي على كل لحظة وخصوصا يوم الأولية ضايا ويا سيد الملا صلى الله على سيد الورى سيد الملا عليه وسلم الله يسر أمرنا إله الورى وحفظ أهلنا وأولادنا وكذاك والدنا العلا intaas kadib waxaa hadallo wax ku ool ah ka jeediyay goobta mashaaikhdii iyo culimadii ka soo qayb gashay kuwaasi oo si qoto dheer uga hadlay xuquuqda iyo waajibaadka ay muslimiintu isu leeyihiin hadday nool yihiin iyo hadday geeriyoodeen intaba culimadu waxay xuseen muhiimadda ay leedahay isku duubnida isjaceylka iscaawinta iyo ducada walaalka muslimka ah iyagoona tilmaamay in walaaltinimada islaamku tahay xiriir ka sareeya danaha adduunka isla markaana lagu kasbado raalinimada Alle subxaanahu wa ta'ala waa kuwan qaar ka mid ah mashaayikhda iyo culimada oo si qoto dheer uga hadlay xuquuqda ay isku leeyihiin muslimiinta ziyaaratul ikhwaanka wax fiican waaye inaan isu duceyno oo ikhwaanku isu duceeyo waa isku leenahay quraankaasana ka sheekeynaya hadda aayadda quraanka oo soo qaadnay oo rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fil iiman laakiin waxaana la ka rabaa quraanka horta afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd dada lagu yiri oo la dagaalay ya quraanka soo inaan wada qaadanayno balanteena suusaas ma haddaan ikhwaanka aayaddan hadda intaan haddaan ka qaadano sii wad aayadda maxay leedahay اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لكن أنا إسألك كرين كور أنه إخوانك أن زيارنين مركو دينتو أنو دعينين هرتا وإنا مبرنا مركو نول يهي إنو حق ليه صح مركو نول يهي حق ليه كل جن إخوانا يسولنا سوما حقا يسكول لنا حقا يسكول لنا مركو وحاكوكا إنا نان إسكور جند إيو عقدة إسو قادة وحا مركا dadka ugu la rabay inay dadka ugu qalbi wanaagsanadaan waxay ahaayeen dadka ahlu dariiqada maxaa yeelay iyaga baaba waxay ka shaqeeyaan cilmu tazkiya la dhihi jiray ayaga ka shaqeeya at-tazkiya marka qalbigoodu inuu saliim yahay la rabay waxa arkay marka hebel iyo hebel isma salaamaan hebel iyo hebel islama dikriyaan هبل يهبل اسم بوقضان هل هذه أخوة يا إخواني أرنتاس أخوة مياه حق الأخوة ساس مياه محامرك كان كلا حتى محل قدبون كان كلا إخوانك أو سدحات أو كنا سلامة يا محل قدبون آية القرآن كآياتنا فيري وحيل إنما المؤمنون ها إخوة محاكو حاجة فأصلحوا بين أخويكم هذا إسديدين سر هذه أنت إسجل هذا فأصلحوا بين أخويكم أمرنا فروا هدي مركي كوبات شخصيات هذا أضو أد كنتو تاك يقلب حمو يورجنود أن إسحمنا أن يسوع على الحمينو أن كلا تجنو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كتمت إخوانك كتمت وكتجني مركز الحب الحقيقي أمر لا يعبر أمر وحال إلى هو القتل ومت قفك الدرة أما قفك أدنته أو مت حقيقة وإلهي سبحانه وتعالى هي الرسول صلى الله جعله أما بدرته الله جعله وجعل إلهي سبحانه وتعالى درتيس أضع جعشه أما بإلهي جعشه أما صوبديس صلى الله عليه وسلم جعشه نبي هدي الشيخ وإن وصل يا سماه مدنا وحنا هذا هو التملق على هذا ومدك الأحمر ننئي الناق أما صاوها جعيل كليلا وتملق وحلقة عبرة اسكول اللجين حقيقة مدك سدحات وحب الوالد على أولاده جعيلك والدك أولادي سأجعله مرك إلهي يدرتي سوح الله جعل على وحان له الكريم وحاد قيمة بضوء حي لي جعيلك إلهي سبحانه وتعالى الدين في سادو إلهي قلبك أكوت الله وقلبك انتنا فهدنا دينك وقدرمه ومدك كلية كوبت بالي كرتون نلشان رماني سئي نلشان رماني منتبه مرك إلهي سبحانه وتعالى ثبات في الدين الله يرزقك قفك مسلم كأدو حي هدي أصحاب البرسخ أو يهمد والبحق وقولي هدي أحد نجمده ما أنت أو أنتم مسلمين تكمده تعرف أو لا تعرف أما أقو أما أقون قرب كوا مغيه ضغف مسلم هو أدونك ماش أو ضمبيس كدنتي وأنا قولي أن الدنيا يا آخر مدنا إنسان حرير كود نقد حين محو هذا الدافع وقال مغيه ساس إن القلب وكل ربع قد الغياب ضغف ودعيست أو صلاة كجر وماله وفي عام ووجد هذا السلام علينا هي وعلى عباد الله الصالحين يا واي وهل موجود اسكو حرام وعلى عباد الله الصالحين وكالة انت صاحبك أما أبو أما أبون ورترى بالدوين اسكو حروين يا جره وما لها مالك سوى وين أي كمديهين مرك إن شاء الله تعالى
waqtigoo qariib ah in badan oo la soo fadhiyay akhwaanka iyo axbaabta meelo dheer ka yimid anigoo hadda badaacadeedu iska yartaho wax badan aanan fatahayn in sha allahu tacaala khaatimadii la soo gaaray ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshaan ha nagu xoreeyo ducadii waa noo dhiman tahay macallim xasan ayaa noo jooga iyo ragga la midka ah laakiin meeshaan maqsadka aan dadkii oo soo abaabulay iyo dadka uu soo kaalmeeyo garbaha oo ah intaba muraadka Allah na gaarsiiyo soo imaadkan khayr kale oo khayrka badan saliga la akhriyay qurbaanka maatay la heli doono quraanka la akhriyay wacdiga iyo adkaarta kulli la akhriyay rasuulullah ta'ala ka thawaash intii raado rumayda Allah ka thawaash awliyadii anbiyadii Allah ka thawaash mu'minaanta mashaayikhinta Allah ka thawaash muallimaanta mutaallimaanta Allah ka thawaash qaari'aanta xaafidaanta Allah ka thawaash xirtii xujaydi xaafid quraanka Allah ka thawaash intii dhasha Allah cafiyo leeminaha iyo maghfir Allah nasiyo cafiya caafatino Allah nasiyo aynu rahma Allah nasiyo dambigana maghfir Allah ka yaal Allah naqbal dambiga Allah dhaafo يا فاتح